الحمد لله عشر كحنا قبل ما يسورة ninkana u jeedana waxa la yiraahdaa ina hooyo qaali inkastoo aan haynin magaciisa saxda ah haddana waxa ay dadka magaalada Hargeysa ugu yeeraan ina hooyo qaali ninkan sida la sheegay oo dadka komitiyada dhibta ee dadka yaqaanaba ay sheegayaan in uu u waashay kadib markii aflagaadooyin badan loo geystay ninkan taariikh ahaan waxa uu ahaa nin mu'adin ka ah mid kamid ah masaajidada ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland sidoo kalena mararka qaar salaadaha tujin jiray waxaa la sheegay in ninkan aflagaadooyin badan oo uu kala kulmay bulshada magaalada Hargeysa oo uu la noolaa ugu dambeyn masaajidkii ay ka saartay ama caydaasi ay gaarsiisay heer uu waasho oo uu dibadaha wareego ninkan ayaa xaafidul qur'aan ah sidaad aragtaanba waxa uu fasirayaa qaar kamid ah aayadaha ku qoran ما برسخوا لا يبقى ولا بدي بيوم من نقل كمنا معان كايد مرة عضنا كايد مرة مذوق هاي ninkan waa xaafidul qur'aan sidaad aragtaanna waxa uu fasirayaa qaar kamid ah aayadaha ku qoran kitaabka uu gacanta ku hayo dhaqanka bulshadeena Soomaaliyeed ka dhex jira ayaa ah in qofka lagu caayo jinsiga uu ka soo jeedo ama haybta uu reer ahaan tirsado waxaana jira dad badan oo nagu dhex dulman haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed dadkaasi qaarkooda waxa ka soo jeeda ninkan aad hadda u jeedaan ee la yiraahdo ina hooyo qaali waxa uu ka soo jeedaa sida la sheegay beesha sharafta leh ee Gabooye waa beelaha ugu wax soo saarka badan ama soo saara qalabyada aynu wax ku karsano canjeerada ama laxooxda aynu ku duwano mindiyaha aynu isticmaalno iyo sidoo kale waxyaabo badan oo maanta bulshada Soomaaliyeed asaasi u ah guri kasta laga isticmaalo haddana waxaynu sameynaa in aynu aflagaadeeno oo aynu ku cayno beesha ay ka soo jeedaan ee sharafta leh ee Gabooye qof kasta ma dooran karo beesha uu isagu ka dhashay ama ma uusan dooran oo markii Ilaahay uu abuurayay ma uusan sheegan beesha isaga loogu abtirin doono qof walba beesha uu ka dhashay waa beel Ilaahay uu dooray sidaas daraadeed haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed ama bulshada Somalilandba waxa ay tahay mas'uuliyad ay naga saaran tahay in aynu karaameyno weyneyno sidoo kalena qadarintooda aynu u muujino bulshada nagu dhex dulman ee aynu u haysano in aysan waxba ahayn oo annaga nagu hoos nool yihiin waxaa jira bulshooyin kale oo fara badan oo qaar ugaarsata ay yihiin qaar kabaha tolaan oo qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed ay u arkaan in shaqooyinkaasi ay yihiin shaqooyinka ugu liita ee bulshada laga dhex qabto haddana waxa aflagaadeynaya laandeernimo iyo sareen aan meel jirin uu sheeganaya qof u hagaajinaya kabti isaga ka gooday uusan isagu farsameysan karin u farsameynayay haddaba bulshada Soomaaliyeed tala ahaan waxaan u soo jeedin lahaa kuwa ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba in ay ixtiraamaan sharfaanna dadka la hayb sooco ee lagu tilmaamo in ay yihiin dadka bulshada kuwooda ugu liita